beeralayda way hawl badan tahay beerta qodaalkeedu goor kaliila buu qodayaa dibidii bay isla dhinteen oon buu ku go'ay dabeedna hadhuurkii baa u baxay hagaag u bislaaday nibay wax isku yihiin oo adhiila ah oo aan weligii beer qodin isagu ayaa awrkiisii soo heriyeystay isagoo jooyada sita uu tagay ninkii isagoo hadhuurkan baxay buu arkayaa bes wax lala soo maray ma garanayo manuu arag beer hadhuurkan uu doonayaa inuu rarto xagga haweenkay malaha wax iskaga yaraayo xishoodna ninkii beerta uu ku yir jiraa deedna wuxuu yidhi waryaa hebel hoo hadeedii gumbood xaggee joogaysay buufti an waxaan lahay keliya intaasun ninka maanta somalilan dagaal iyo khaliyo war xagguu joogayay hadeedii gumbood asalaamu calaykum gudoomiyaha maayarka degmada gabiley iyo cuqaasha waxgaradka dhalinyarta arrinka soo abaabuliyeyna way mahadsan yihiin intaa markaan dhaafo hadalkaygu wuxuu ku saabsan yahay labada xusbiye mucaaridka waa la ogol yahay goor walba xusbiye mucaaridihi dee dastuurkay ku jiraan oo oy dhaliisha xukunka xusbiga kolkaa xukunka haya inay dhaliishiisa sheegaan oy halkaa wax ka toosiyaan oo dalku halkaasuu ka xun yahay la yidhaa oo halkaa qolada xusbiga kolkaa talada hayaana halkaa ka shidaal qaato oo uu ka toosiyo wixii uu sheegay ilaan guriga ninka ku jira maa ninka dibadda joogaa baylahda arkayee in sidaa la isku toosiyo weeyaan mucaaridnimadu laakiin maaha mucaaridnimadu dagaal baan maanta gelaynaa maaha mucaaridnimadu xukunka cidda haysaa mucaarid lagu noqdaa haddaad mucaarid noqonayse laakiin dalka iyo dowladnimada somalilan mucaarid laguma noqdo ninka mucaarid ku noqdaana somalilan maaha waxaan idin leenahay oo aan markaa idin xusuusinaynaa nimankaa ku baaqayay dagaalka ragga waaweyn ahaa waar kolkii dagaalku wixii dalka soo galay wixii dalka ka dhacay xaggeed joogteen dagaalkii dalka ka dhacay ee dalka lagu xoreynayey ee kelidii taliyiisii aad barri lagaga xoreynayey xaggeed joogteen miyaydaanse xusuusnayn ragga dhiigoogii maanta gobonnimadu ku taagan tahay meedaan xusuusnayn somalilan oo dhan baa wada xusuusan wuxuu yidhi ragba dhimaya dhoolay waxba aniga ii dheer war waxaan idin leenahay annagu haddaan gobolka gabilaynahayna waxbaa noo dheer waxaan is leenahay maanta ragga dhiigoogii dalka oo caalamku ku taagan yahay isaga oo somalilan oo dhan u saameeyey haddana waan dheernahay annagu kolka dagaal la soo qaado waxbaa nagu kacaya waxaan xusuusanaynaa kolkii dalka la xoreynayey raggii nagaga dhintay ee maanta caalamku ku taagan yahay dhiigoogii baan xusuusanaynaa ninka maanta dagaal baan ku baaqayaalahow guna maad jirin somalilan darna ma yihid somalilanna uma danaynaysid madaxnimona sidaa kuma helaysid cidna kugu aamini mayso kolkaad xukunka qabatana dee dagaal baad ridin oo dalkaabaad baabiin adigoon xukun haynin ayaad macaaridnimadaadii halkaad xukunka xusbiga aya ka toosin lahayd ayaad macaaridnimadaadii noqotay aynu dagaalano war haddaana dagaalkii hore joogin wadannada kale dagaalku ka dhacayaan tag haddaad dagaal doonayso kani way ka soo dhammaatay dagaalkii shacbiga islaaluushaya oo dhulka iyagii baanu laaluush ku bixinay barhkood dowladnimada somalilan darteed laaluush baanu ku bixinay waxaan ku leenahay annagu waanu ka laaluushaynaa dowladnimada somalilan ciddii macaarid ku noqotaba war maxaad doonaysaa baan leenahay waayo raggii ku dhintay baanu xusuusannahay war haddaad doonayso sidaa lagugu dooran maayo
وانا دي استشاكتي دقال هالكن كدعانا ما أقولين انتي هوران حصوصنا هاي رقينا قاعد انتي أديكو هدانا أديكو وحبا كادمان وانا أديكو حصوصنين أنا عالم كديجي رقينا قاعد انتي يو عالم كيا وكنت تاجن يهدي ديجوجي هذا دقال دون يساسي أدون وين أفريقيا يرى أو وحي كون مقدر كل شيء جواب تيدو وحبا صواب بها أروح هذا الكبدين مايو لابد نبان جواب علنيا نكلا يرى أحمد مؤمن ساد أو أحد دومي كحيين كوطني وحلا يا أحمد مؤمنو والله أقول يهي أو أتكو صواب بحدي أو حسب جرات هاي أو وطني لبحي وطني نمدو دما هم على حسبك وطار أولا لتوي تلك سوماليلاند waxaa ka jira 3 xisbi qaran oo dastuurka Soomaaliland ogol yahay oo muwaadiniinta Soomaaliland leedahay oo ku soo baxay codka shacabka laakiin ma aha waxaan doonayaa hadii la yeeli waayo dagaal baan ridayaa xabad maanta inama hortaal waxaad ka dagaalamaysaa waa kursi madaxweyne ku xigeen oo u sharaxantay daa ku gaadho waqtigeeda madaxweynaha Soomaaliland ee ku soo baxay codka shacbiga ee aan ku geynay kursiga oo maanta fadhiyo waxa uu haray 10 bilood 10 bilood markay dhamaadaan wixii hadal ay aad celinayso markaasay ku banaantay laakiin maanta oo laga hadlayo diiwaan gelinta madaniga ah ee wadanimada ah inaad ama tiraa dagaal baan ka ridayaa shalay ku baaqdo daraad shalayna tiraado 2016 waxaanu ka qayb galaynaa doorashada xamar ka dhacaysa adeer marka hore ku sii jeeday iska tag halkan de waxaad ahayd baan u maleynayaa inaad ku awrakacsanaysay ninka xamar tagayo lagama joojiyo Soomaaliland ma matalaysid Soomaaliland waa dal jira dastuur leh calan leh madaxweyne leh dimuqraadiya intaas oo marxaladood u soo maray shacbigiisuna isu duuban yahay shacbiga kursi ma doonayo laakiin wuxuu doonayaa waddankiisa oo nabadgeliyo iyo xornimo taama oo la aqoonsan yahay ku helo taasaan u hambalyeynaa madaxweynaha Soomaaliland oo hambalyeynaayo waqtiga maanta la taagan yahay ee aan waqtigiisii ka haray 10 bilood ninka maanta la dagaal baan ka ridayaa 10 bilood horta ha dhamaadaan baanu leenahay mudana madaxweyne adoo wax qabadka gobolka waanu kugu mahadnaqaynaa waanu kugu hambalyeynaa waxaanu ku leenahay doorashada xalaasha aad ku qabatay waddanka todobana insha Allah waad ku qaban waanu ku soo dhaweynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi ku baraabuulo waxaynu maanta halkan u nimid waa kelmadii xalay soo yeedhay inta wax garanayso dhanaanay ka seexan xalay waxyeeladeeda maanta ay qaranka Soomaaliland u leedahay marka waxa la yiri waxyaabo ilaahay kaaga digaa moogtahay xisbiga labada xisbi ee wadaniga xisbi qaranada ee mucaaridka waa la ogol yahay xisbi maanta xisbi xaafidka maanta jooga ee talada shalay mucaarid buu ahaa wuxuu ku qabsaday isaga oo u samray moogtahay oo lagaga helay doorashadii madaxnimadii hore 80 cod lagaga helay iyaanu ku dhawaaqin dagaal waayo waxa weeyaan waxbuu hiigsanaya inuu kursiga qabto oo wadanka hogaamiyo oo wax u qabto iyo hiigsanay waanu ku guuleystay wax qabadkiisina waa la arko aad baan ugu hambalyeynaa wax fara badan buu wadanka u qabtay waxna way u dhimayeen waxaan ogolahay nin kasta oo wadani oo Soomaaliland inuu u halgamo kursi kasta uu qaban karo inuu u halgamo uu si xalaal ah ugu halgamo waanu ogolahay hadaan nahay shacabka iyo madax dhaqameedka ummadda hogaamiya waanu ogolahay laakiin ma ogolin nin maanta idhaa inaga oo halkaa joogna dagaal baan maanta ku baaqayaa ninkaasi wuxuu isa sheegay inaanu Soomaaliland ahayn waxna doonaynin weeyaan warta waxaan idin sheegayaa nimanka ku dhawaaqayo xisbiyadii wax weyn baad yeesheen ummadii Soomaaliland maanta way ka aamin baxsay kalsoonida shalay hadda u qabtay maanta uma hayso
waayo dee waxa la yidhi ninka ciid kugu sayday waxba kuma u yeelin calooshiisu ku tusay waxa idinka dambeeya idinku jiraad sheegteen marka idinma aaminayno shalay waxaanu lahayn war xisbigani malaha dee waxbuu qabtay uu yar daaliyey xisbiyada kale keen ku biirnaayo ugu yar cadcad baan lahayn moogtahay waana dee wax la ogol yahay laakiin maanta waxaad digniin weyn baad bixiseenoo ummadda Soomaaliland aad u bixiseen oo maanta nin walba wax garanayaaba xalay kolkuu arkay aad iyo aad buu idinka biyo diiday la idinna aamini maayo taasi waa waxaad u tarteen xisbiga maanta talada haya ee uu hogaaminayo madaxweynaha Axmed Maxamuud Siiraanyo hogaaminayo iyaad wax u tarteen waxba ma idaan yeelin ummadda Soomaaliland dagaal way ka soo daashay waxa la yiri dagaalka waxa ugu jecel ninka culmooga laakiin ninku hadduu dagaal galo wuu ka naxaa dagaalka wuxuu yaqaanaa waxyeeladiisa shakhsi ahaaneed uu yeelo bini'aadanimada ee uu dhaqaalaha yeelo uu nafleyda yeelo uu waddanka yeelo u yaqaan dagaalku ninka galaa marka inaad culmoogtiin aan wali dagaal aragna way noo caddaatay sidaa daraaddeed waxaan idin leeyahay waxba ma doonaysaan walaalayaal waananu idin ogaanay dagaalna ma gelayno xamarna uma soconno ninkii xamar u socdo waa yar iska tag assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu maanta uma baahnin maqalkeedana waan aad baan u necabnahay noo dhigtay ninka maanta ku baaqay inaan dagaal gallo waxaanu kula talinaynaa ummadda kale iska daayo isagu inuu ka noqdo oo uu arrinkiisa isagu beeniyo waayo waxaanu ahayn dee arrin lagu hadlo oo weliba cid mas-uulihi ku hadasho maaha laguna raaci maayo umana baahnin waxaan leenahay ninkii dee kursidoonihi ciddii kursidoonihi dariiq loo maraa jira dee oo xalaalah qofku inuu wax dadku ku raaco keeno uu dee aqlabiyad sidaa ku helo ayaa dee kursiga lagu helaa laakiin in dagaal iyo balaayo iyo waxaan loo baahnayn la keeno waxba laguma helo ninka dagaal ku baaqayana waxaan weydiinaynaa bal kursiga uu doonayo dee halkuu dhigan lahaa ilaan dagaal baabuu iclaaminayaa waxaan ku soo gebagabaynayaa waxaan leenahay arrintaa ka noqda Somaliland mida idinku raacaysana maaha mid idinka idin cuntamana maaha ka noqda baanu idin leenahay annana waanu idinku diidnay arrinkaa cid Somaliland ahoo kow idinka odhanaysaana ma jirto salaamu calaykum waraxmatullahi waxaan leeyahay dagaal waa la galay waa lagu guulaystay oo wanaagsan oo bari iyo galbeedba gacan midha ah ayaan noqonnay waxba hadalka yaan nimankan lagu badin dagaal wuu soo dhammaaday ma ninkii doorasho iyo dan doonaya ee macaarid ah mise ninkii dagaal doonaya ninkii macaarid ah ee doorasho doonaya ahlan wasahlan miiska soo dhigo waa ninkii dagaal doonayawna shacbiga Soomaaliyeed iyo shacbiga Soomaaliyeed madaxda dawladda iyo shacbiga Soomaaliyeed waan iska kiin qabanaynaa dagaal waan soo dhamaysanay waana ku guulaysanay wuxuu ahaana waan soo aragnay qalaarkiisa dee ninkay maanta u cusub tahayow dalal waxaa jira dee calooshadu shaqaysi doolayo lacag badan la siinayo oo haddii ilaahay laga ku guulaysanayo ha taga meelaha yaa oo hadduu madaxna ma doonayo dalna ma doonayo inuu na dumiyo doonayo yeeli weyne dee waxaa jirta qodan haddii ilaahay dalal badan oo looga yeedhayo la siinayo lacag fara badan oo calooshadu shaqaystooyinka oo dhan loo yeedhaya baa jira taga kuwa noolkana waan iska bixinaynaa weliba waan idin raacinaynaa yaa hadda waanay ahayn oo Soomaaliland oo nabadgelyada ka mid yihiin walaalayaal macaaridka idin diidi mayno miiska soo dhigta dadka Soomaaliyeed Soomaaliland baad la mid tihiin Soomaaliland baad ka mid tihiin shacbina macaarid iyo muxaafid ba dawlad walba way leedahay macaarid kama diidani miiska soo dhigo nasiibkaaga qaado
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta ku dhawaaqay inuu iska tago xamad oo galeerka la yeeriyay dadkuna ka dhimanayo inuu raaco iyo maanta u wanaagsan maanta inuu yiraahdo dagaal baan galeynaa halka ka soo jeestaan si walba dadkeena ku dhimanayo yaa iskarteen ku dhimanayso dadku maalin walba dagaal baa bari ka dhaca ka inuu tago wanaagsan laakiin uu shacabka yiraahdo aan dagaalano oo dagaal kale gudaha uma baahnin xamad iska tago hadduu doonana ha taga yamantan dagaalad ka soo aniyo carabta ha u dhoofada ku faysalina kiiswaakii tagay ha ka daba tago oo halka inuu dagaalkaasi ka wareystayna kii faysal iyo haboon anagu maanta diyaar u meey assalaam alaykum anagu dagaal ma doonino dagaal buu soo daashaday dadka iyagii baa ku dhintay dunyadii baa ku luntay yaa haddaan soo kabkabanana soo noolaanina yaa ninkii dagaal doonaya yaa dee isaga u taalaaye yaa meeshu doonaya hato wassalaamu calaykum هذا معارضك وحنا نصيب دراء ورك اسمه معارض الصومالان وحنا شعب وجعلنا كو هذا طابر وحنا ما قمنا من معارض مضى وحنا معارض هي اللي سور جيده horta waa diiwaangelinta Soomaal diiwaangelinta madaniga wali ma inaan xirin diiwaangelin rasmi ah oo umadu ay noogu soo gasho ku yeelano kaar oo nu kaga duwanaano Soomaaliyeed kale dowladdu hore diiwaangelin bay samaysay nasiib darro way baabaaday wax maanta maanta waxaan filaynaa in diiwaangelin rasmi ah oo noqota sharci waxaan garan waayay sababta mucaaradku goor walba marka diiwaangelin la sameyn la yiraahdo wadamada uga juudi u carruurta dagaal ku cararo war dadka xeer baa loo sameeyey oo sharci baa saxaxdan oo xeer diiwaangelin baa saxaxdan dowlad iyo mucaarad waxaan ka doonaynaa xeerkii diiwaangelinta saxaxdan ummadan diyaar bay ka tahay ninka hor joogsadan kama yeeli mayno shacbiga dagaal buu soo arkay waxa dagaal ku doonaya ma jiro ninka dagaal doonaya shacbiga la hadlaya ninka cod doonayana kursiga la hadlaya intaas oo hadlaya waxaan sheegaynaa qolada ku hadlaysa maanta ku jahanjabaysa dagaal ba qaadayna iyo dagaal ba galayna dadkan waa la idin sheego dagaal bay soo arkay wuxuu yiri sheekh Salman wuxuu yiri war ninkan awrka doonaya miyaan guboodo weyn cadadii gubood halka joogtay cadadii gubood baa sharaxaya cadadii gubood waa cadada lagu baaqba awrka lagu marka ugu horeysa lagu qodayo beeraha ila rogayo ee roob yar reesmada jirin cadad iyo dhul adag yeesayaan iyo dibigaas oo dhidid yaacayo markaas uu dhidid ku taagnaa buu jeeday arigu wati markay waxaan dhacayeen halka ku maqnay bank aynu garan lahayn ninka dagaalamayo halkan dagaalma yaalo laakiin ninka dagaalamay dagaal hadla ka soo hadla anaa ka hadlayno ninka codoonaya diyaar baa u nahay ninka dagaal doonaya diyaar baa u nahay labadaas si cilmi u naqaan fadlan waxa ku leenahay ee yar codka dadka ka qaado wax lagu doorto noo keen dagaal ku dooran mayno waxa diido ku dooran mayno diiwaangelintu waa diiwaangelin madaniya waa diiwaangelintii dadkan telekoobkooga ay ku heli lahaayeen ee sharciga ku heli lahaayeen ku kala bixi lahaayeen muwaadin iyo muwaadin ahayn dalkana waxa jooga intaasoo boqol kun qof oo muwaadin aan muwaadin ahayn jooga waxa maalin walba soo gala intaasoo boqol maalin walba waxaanu ka celinaa xuduudaha dad taariibayaal oo iska socda oo bilaa sharciya wayna soo galaan qof heer furfurada laba cisho joogaan wuxuu Soomaaliland buu noqdo kamid buu noqdo xukuumadda waxa ka doonaynaa inay samayso diiwaangelin sharciya oo rasmi ah oo aan Britoola xisbiga daba oranin waa laalay ee taagnaata oo goor marka codka la doonayo sida loo kala baxayo wala yaqaanaa diiwaangelinta codbixiyaashu muddo leedahay intaas sanado baa loo qabtaa ama laba teerma noqota ama one teerma noqota laakiin diiwaangelinta madanigu waa tujiraysa warigeeda lahayd oo aan Britoola noqon doonin ama Ingiriis baa nagu diiday in la oran Britoola ama la oran maxaan ku leeyahay xisbiga baa diiday markuu qabtay tii shalay buu laalay madaxweyne waxa ku leeyahay diiwaangelinta maanta saan noqoto diiwaangelin sharciya oo socota hana ka baqin hore waxaad u adkaysan jirtay inaad waxaad ku dhawaaqdo aad dib u noqon ha ka noqon ma kulana xababa soo marsataniye ha uga baqin af jawaabta faraha badan leh kubay saanta soo jawaabsan iska daayo anaa ku joognaa u jooran xukuumadda waxaan leeyahay ka jawaabin waxa qaarkood anaa ka jawaabina ninka dagaalkooda anaa joognaa ka jawaabina laakiin af dikuraada qol kuuga ma ka badiyay ma ka adkaa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh